xasan sheekh iyo qoorqoor yaa adkaan doono galmudug oo madaxa la gashay jahawareer siyaasadeed maraykanka oo liis dheer loo gudbiyey oo ah dadkii hubka lahaa warbixintan ayaad kaga bogan doontaa foolkaanada qoorqoor ku soo wajahan balse marka hore muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada galmudug waxay gashay marxalad hubanti la'aan siyaasadeeda iyada oo weli aan la gaarin doorashada waxaa durba soo baxay xifaaltanka siyaasiyiinta quudaraynaya xilka ugu sarreeya galmudug oo ah madaxweynaha fadeexadii hubka caabudwaaq ayaa dhanka kale isu rogtay iyada oo madaxtooyada galmudug ay siyaasadaysay hubkii la bilileqaystay laguna boobay xuduudda galmudug oo la wadaago deegaanka soomaalida galmudug waxaa isku haya 3 awoodood oo kalsooni ka haysta madaxweyne xasan sheekh dhacdooyin dhowr ah oo labadii sano ee lasoo dhaafay galmudug ka dhacay ayaa tusaale fiican u noqon kara sida awoodaha isriixaya ee wada haysta raalli ahaanshaha xasan ay haddana sabab u noqon karaan guuldarrooyin waaweyn oo gaaray qorshayaashii waaweynaa ee madaxweyne xasan sheekh mid ka mid ah tusaalayaasha ugu muhiimsan ee lasoo qaadan karo waa howlgalladii dib u xuraynta ee madaxweynaha dhowr bilood gobollada dhexe ugu maqnaa kuwaas ugu dambeyn dhabarjibin kala kulmay lagdanka iyo siyaasiyiinta loolanka u dhexeeya fursad siyaasadeed ayay u noqotay qoorqoor hubkii gacanta u galay dadka deegaanka tani waxay bannaanka u soo saari doontaa wejiga dhabta ah ee madaxweyne xasan sheekh markan ma haysta geed uu ku gambado waxayna dantu keentay inuu caddeeyo cidda uu wato iyo suurtagalnimada ah in awood uu adeegsado villada hadda waxay ka fikiraysaa qaabka doorashada galmudug taa oo waddo walba laga yaabo in ay ka soo xiranto hogaamiyaha galmudug ayaa gasha seefta kala baxay liis dheer ayuuna u gudbiyey safaaradda maraykanka ee muqdisho oo kulan degdeg ah uu kaga qayb galay taliyaha nisa sambalolshe ayay safaaraddu wax ka weydiisay xogaha uu ka hayo arrintan qoorqoorse wuxuu baansiin ku sii shubayaa xaaladda hadda taagan isaga oo fursad kale ka dhex helay mucaaradkii watay hubkaas sida la rumaysan yahay mucaaradka iyaga ayaa gacantooda isku dilay sida ay qabaan falanqeeyayaasha ama dadka taxliiliya siyaasadda Soomaaliya warqadda ka soo baxay dowladda galmudug dagaalkeeda waa uu adkaa diraddana waxay saaraysay dadka hubkaasi lahaa shacabkii iyo dadweynihii uu hubka u gacan galay inta badan mudnaan laguma siin warqadda wuxuuse qoorqoor warqaddiisu ku sheegay ama wasaaradda amniga galmudugba qoraalkeeda ku sheegtay in dadkii hubkaas soo dejiyey lala xisaabtami doono warqadda oo dhowr ciwaan ama dhowr baaragraaf ka koobnayd laguma xusin inta badan dadka deegaanka iyo hubkaasi sida loo soo celin karo hase ahaatee waxay diiradda saaraysay sida keliya ee dadkii ka dambeeyey oo lagu sheegay in ay ahaayeen qowleysato lagu soo qaban lahaa haddaba daawadow maxaa kaaga baxay hubkan u gacan galay reer caabudwaaq xalkuse muxuu yahay aragtidaada nala wadaag muuqaalka like saar oo nagu soo biir mahadsanid